يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. aadam wuxuu ka abuuray dhoobo ayuu ka abuuray. dhoobadaas markii hore dhoobada ayaa la sameeyey oo suuraddii iyo muuqaalkii u aadam noqon lahaa oo dhoobadii ah ayaa markaysaga inta saa la sameeyey dabeedna markaysa markaa la daayey mudduu dabeed markaysaga yaallay isagoo dhoobo ah. dhoobadii waa qallashay, yacni markay qallashayna markaysaga markii hore waa suyuucdo waa madoobaatay, markii dambena waa qallashay. markay qallashay waxay noqotay wax adag oo sidaas yacni marka waxba u yaalla. ibliis malaa'igtuu ku dhex jiray, markaana ilaahay waa caabudi jiray. isagoo malaa'igtii ku dhex jiro oo ilaahay caabuda ayuu dabeedna markaysaga aadam oo dhoobo ah oo dee dhoobadii ay qallashay ayuu u yimi markaasu ku warwareegay sida xadiiska saxiixi sheegayo ee muslim saxiixa kusoo wariyey. wuxuu markaa gartay in wax laga abuurayo halkan, markaasuu dabeedna garaacay. markuu garaacay ayaa markaysaga xabadka ama ayaa wuxuu sanqaray. sanqaruu gartay inaanu isku maraasnayn oo guduhu buuxin ee gudaha hoose xabadku inuu daloolo ayuu gartay. garaacaasuu ka fahmiyey. facarafa anahu khalaqa khalqan laa yatamaalak. xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyay saasuu sheegaya. wuxuu gartay ibliis inuu ilaahay abuuray abuur aan naftu waxay jeceshahay iska hanan doonin. muxuu ka fahmiyey? wuxuu ka fahmiyey xabadkaa daloola. mar hadduu xabadku daloolo oo aanu isku malaasnayn oo guduhu buuxin, waxa markaysagaa naftiisu jeceshay iskama hanan doono. hadda weli naftii lama gelin aadam, markaasuu ina sahansaday. ibliis markaasuu ina sahansaday. markaana malaa'igtu ku dhex jiraayo ilahay baabu caabudaa. naftii baa markaa haddaba ilaahay u geliyey aadam. aadamna ilaahay siduu u abuuray, yacni ilaahay waa sharfayoo gacmihiisuu ku abuuray.